السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada mar kale iyo cutub kale ee cusub. cutubkan waxaan uga hadlaynaa how Canadians govern themselves, sida nidaamka dowladeed ama xukuumadda Canada qaabka ay u shaqeyso ayaan ka hadlaynaa. طبعا markii aan chapterkii labaad ka soo hadlaynay xoogaa waan soo taabanay, waxaan soo sheegnay in Canada ay leedahay constitutional monarchy, dastuur oo boqortooyo ayaan ka soo hadalnay, laakiin hadda waxaan u geli doonaa si qoto dheer ayaan uga hadli doonaa. marka Canada waxyaabo waxaa jiro ayada u gaara oo wadamo badan ay uga duwan tahay. waxyaabahaas waxaa ka mid ah: there are 3 key facts about Canada's system of government. Our country is a federal state, a parliamentary democracy, and constitutional monarchy. waxaa jiro 3 arrin oo aad muhiim u ah oo systemka dowladeed ee Canada ama nidaamka dowladeed ee Canada u gaara. waxaa ka mid ah: 1. Canada nidaamkeedu waa federal state. federal state waxaa loola jeedaa yacni dowlad dhexaa jirto, haddana saas ay tahay dowlado goboleedyo ayaa jiro. طبعا horaan usoo sheegnay markii aan ka hadlaynay confederationka, waxaan sheegnay aabayaasha confederationka ama fathers of confederation inay 2 level soo sameeyeen. level wuxuu ahaa kii federaalka iyo midkii kale provincialka, laakiin se Canada hadda waxay leedahay 3 level: federal iyo provincial or territorial oo hal level isku ah, iyo local ama municipal level. 3daas marka 3dooda waxay kala leeyihiin awoodo kala duwan, waxay kala leeyihiin mas'uuliyaad kala duwan. waxyaabo waxaa jiro ayaga u madax bannaan yihiin oo kaligood ay samaysan karaan, iyo waxyaabo aysan uga maarmin dowladda dhexe. marka federal state marka saasaa loola jeedaa, gobol kasto maamul gaara ayuu leeyahay, waana ka hadli doonaa insha Allah. Parliamentary democracy waxaa loola jeedaa shacabka ayaa baarlamanka soo doorta, qof iyo cod ayaa lagu soo doortaa. A constitutional monarchy-na waa xagga dastuurka boqortooyada nidaamka boqortooyo ayay isticmaalaan. yacni haddaan tusaale yar idin siiyo waana arki doonaaye, Canada markuu ugu horeyso head of state-ka Canada ma ahan ra'iisul wasaaraha waddanka. head of state-ka waa Queen Elizabeth II ayaa hadda ah. haddii hadhow qof kale uu bedelana qofkaas ayaa head of state of Canada noqonayo. marka ma ahan qof Canadian qofka head of state-ka u ah, ee waa boqortooyada Ingiriiska qof ka socdo oo markaas matalayo. 2. markasto oo mashruuc ama bills la keeno baarlamanka oo la meel mariyo, marka hore waxaa meel soo marinayo aqalka hoose ama aqalka baarlamanka, then aqalka senatka ama aqalka sare. markay labadooda soo ansixiyaan waxaa loo keenayaa governor generalka oo Canada u fadhiyo boqortooyada Ingiriiska, ayaga ayaa saxiix ugu dambeeya ku duugay. marka constitutional monarchy-gana dhinacaas ayaa loola jeedaa. Okay, there is a clear distinction in Canada between the head of state, the sovereign, and the head of government. يعني wax maaragtay cad oo kala saarayo ayaa jiro Canada markii laga hadlayo nidaamkeeda. head of state saan soo sheegnay waa the sovereign oo waa boqortooyada Ingiriiska oo hadda Queen Elizabeth II ay boqorad u tahay. head of government-na waxaa Canada u ah prime ministerka ama ra'iisul wasaaraha waddanka, who actually directs the governing of the country, kaasoo haga ama madax u ah xukuumadda waddanka ka jirta ama maamusha. prime ministerka marka ama ra'iisul wasaaraha selects the cabinet ministers and is responsible for operation and policy of the government. ra'iisul wasaaraha shaqadiisu waxay tahay in uu soo xusho wasiiro, sidoo kale xukuumaddiisa iyo asigaba waxay mas'uul ka yihiin shaqooyinka dowladda ay qabanayso iyo siyaasadda ay dowladda ku shaqaynayso, inay ay baarlamanka geeyaan, ay meel mariyaan ayay shaqadooda tahay.
sidoo kale the House of Commons aqalka baarlamanka Ottawa ku yaala midka federaalka ayaan ka hadlaynaa is the representative chamber made up of members of parliament elected by the people traditionally every 4 years. House of Commons-ga wuxuu ka kooban yahay dad xubinka ah baarlamanka, dadkaas oo shacabka ay soo doortaan 4 sano kasto sida caadada ah. Marka senatorskan ka hadlayna, senatorska iyo muxuu ahaa MPs ama members of parliament-ga waa ay kala duwan yihiin. Waxaan soo sheegnay members of parliament-ga in la doorto, they are elected by the people. Laakiin senatorska saas maaha. Senatorska waxaa waaye senators are appointed by the governor general on the advice of the prime minister and serve until age 75. Senatorska ayaga waxaa soo magacaabo governor generalka asoo la tashanayo muxuu ahaa prime ministerka ama ra'iisul wasaaraha, waxayna dadku u adeegaan ilaa ay ka gaaraan da'da 75 jir. Marka sanadku wuxuu uga duwan yahay muxuu ahaa waa appointed, waa la soo magacaabay, governor generalka soo magacaabay, governor generalkana waan ka hadli doonaa insha Allah. Sidoo kale waxaa ku xiran asna muxuu ahaa laakiin lama xadido markii members of parliament-ga laga hadlayo. No bill can become a law in Canada until it has been passed by both chambers and has received royal assent granted by the Governor General on behalf of the sovereign. Marka arrintan xoogaa waan soo taabtayba. Mashruuc la keeno baarlamanka ma noqon karo sharci, Canada kama noqon karo ilaa ay ansixiyaan labada aqal. Labadaas aqal maxay kala yihiin? House of Commons-ga oo hadaan soo sheegnay la soo doortay iyo senatorska. Labadaas inay soo ansixiyaan. Markay labadaas soo ansixiyaan hawsha meesha kuma dhamaanin, doorkii waxaa dhiman monarchy-ga. Waxaa loo baahan yahay marka has received royal assent. Waa in maaragtay ay helaan muxuu ahaa ogolaansho dhinaca maxaan ku irahdaa boqortooyada oo uu ku matalayo Canada governor generalka. Marka biilka nidaamkaas u shaqeeya, biilka waa la aqriyaa, akhris koobaad, labaad, saddexaad soo maraa committee iyo waxyaabo ka soo shaqeynayo. Marka hawshaas markay ka soo dhamaato House of Commons-ga waxay u soo gudbinayaan oo ay soo ansixiyaan, waxay u soo gudbinayaan House of muxuu ahaa Senate-ga ay u soo gudbinayaan. Senate-ka ayagana sidoo kale way ka doodayaan, committee u saarayaan, ayagana markay ansixiyaan governor generalka u gudbinayaan, governor generalkana saxiix ayuu ku duugayaa. As a constitutional monarchy, Canada's head of state was soo sheegnay queen or king waaye in accordance to the constitution or the rule of law. Marka sharciga Canada wuxuu qorayaa maadaama Canada dastuurkeedu uu yahay dastuur oo maaragtay boqortooyo nidaamkeedu ku shaqeynayo. Head of state-ka wadanka waxa waaye king or queen or king. The sovereign is represented in Canada by Governor General who is appointed by the sovereign on the advice of the prime minister usually for 5 years. boqortooyada maadaama boqorada aysan joogin Canada طبعا oo ay Ingiriiska joogto waxaa halkan ku matala governor generalka. Su'aasha marka waxay tahay governor generalka sidoo ku yimaada xilka sidee loogu magacaaba? Governor generalka waxaa soo magacaabo the sovereign, boqortooyada ayaa soo magacooda, yani Queen Elizabeth ayaa soo magacaabaysa iyo qofkii markaas bedelay ayaa soo magacaabay. Laakiin waa in hadana lagala tashtaa sidoo kale prime ministerka. Marka prime ministerka markasto oo boqortooyo laga hadlayo waa uu ku lamaanan yahay, mar walba taladiisa ayaa maaragtay meesha ka marnay. Marka governor generalka markii ay soo magacaabaan boqortooyada wuxuu xilka haynayaa 5 sano. طبعا 5 sano ka hor xilka waa ka tagi karaa haddii ay waxyaabo kale oo aan markaas lagu talagelin ay yimaadaan, laakiin sida caadiga ah 5 sano ayuu joogaa. In each of the 10 provinces, the sovereign is represented by lieutenant governor who is appointed by the governor general on the advice of the prime minister, also normally for 5 years. Governor general marka waxaan iri Canada oo dhan ayuu u matalaa boqortooyada. Laakiin 10 gobol
the provinces aan ka hadlaynaa oo territorieska saddexda kama hadlayno 10 gobol oo provinceska ah sidoo kale waxaa joogo qof matalayo sovereignka ama boqortooyada ayaa joogo qofkaasna waxaa la yiraahdaa lieutenant governor ayaa la yiraahdaa lieutenant governor kana waxaa soo magacaabo governor generalka ayaa magacaabo maadaama governor generalka Canada oo dhan uu u qaabilsan yahay boqortooyada asiga ayaa magacaabo haddana again on the advice of the prime minister mar walbo ma aragtay waxaa meesha ka marnayn talada ra'iisul wasaaraha sidoo kale 5 sano ayaa ma aragtay uu xilka haynaya lieutenant governorka okay marka wali waan ka sii hadlaynaa nidaamkii dawladeed ee Canada ayaan ka hadlaynaa horaan u soo sheegnay federal state-ka iyo muxuu ahaa iyo parliamentary democracy constitutional monarchy waana soo sharaxnay marka wax yar aan waxaan ka sheegaynaa federal state-ka iyo qaabka uu shaqeeyo iyo maaragtay responsibilities-kooda iyo wixii kala tahay marka federaalka hadda ku hormarno federaalka aqalka baarlamanka dadka jooga waxaa la yiraahdaa MPs la yiraahdaa ama members of parliament waana dad la soo doortay sidoo kale dawladda dhexe ama xukuumadda dhexe mas'uuliyaadkeeda waxaa kamid ah national defense muxuu ahaa difaaca wadanka ayaa kamid ah foreign policy wasaaradda arrimaha dibadda ayaa kamid ah citizenship jinsiyadda ayaa kamid ah policing ayaa kamid ah maaragtay booliska iyo ammaanka in la sugo criminal justice muxuu ahaa cadaaladda international trade ayaga mas'uulka ah oo maaragtay wixii international ah oo xiriir caalami la galayana dawladda dhexe ayaa mas'uulka ah aboriginal affairs dawladda dhexe kamid ah immigration-ka uu ka wada dhaxeeyaa citizenship ma ahan laakiin immigration guud ahaan wuxuu ka dhaxeeyaa طبعا federal iyo provincial-ka uu ka dhaxeeyaa agriculture-ka sidoo kale waa shared environment-gana waa shared sidoo kale marka province-ga marka hadaan ka hadalno ama territorial-ka ayaan ka hadalno ayagana province-ga marka dadka ay soo doortaan aqalkooda ay u soo doortaan waxaa la yiraahdaa members of legislative assembly la yiraahdaa ama MLAs la yiraahdaa magacaas ayaa caan ah magacyadan kale oo iska jiraan members of the national assembly oo loola jeedo kuwan oo federaalka ah members of the provincial parliaments ama MPPs members of the house of assembly magacyadan cid isticmaasha ma arkin labada magac ugu caansan waxa waaye MLA oo ah kuwa gobolka province-ga xibinta ka ah baarlamanka iyo MPs oo xibin ka ah baarlamanka federaalka ayaa labadaas ayaa la isticmaalaa midka saddexaad waxa waaye municipalka halkan colorka kama muuqdo laakiin waa municipal ama local dawladda hoose waxaa madax u ah طبعا oo matala waa mayorka ayaa matala waxayna leeyihiin ayagana sidoo kale councillors ayay leeyihiin councillorskaas sidoo kale waa sidii qaab nidaam baarlamaan camal ay u shaqeeyaan ayagana ma aragtay arrimaha magaalada lagu horumarinayo waxaas ayay ka doodaan waxayna ka soo galaan eriyooyin kala duwan ayay ka soo galaan federaalka marka yaa madax u ah prime ministerka provincialka yaa madax u ah premierka muxuu ahaa municipalkan waxaa madax u ah mayorka ayaa madax u ah mas'uuliyaadkoodana waa kala duwan yihiin federaalka waan soo sheegnay provincialka hadda waxay ka sheegayna iyo territorialka education healthcare natural resources highways policing ayaa kamid ah yani waxbarashada caafimaadka waxyaabaha kheyraadka dabiiciga highwayska iyo booliiska gaar ahaan Ontario Quebec waay sababtoo ah markii policing la dhahayo goboladan kale oo aanan ahayn Ontario Quebec waxaa amaankooda sugo muxuu ahaa RCMP ayaga ma lahan booliis u gaar laakiin labadan gobol booliis u gaar ayay leeyihiin haddii aan ka hadalno municipal levelka ama local levelka ayagana shaqooyinkooda waxaa kamid ah social and community health recycling programs transportation and utility snow removal policing firefighting emergency services muxuu ahaa dabdamiska emergency-ga muxuu ahaa
booliiska maadaama magaalo kasta booliis gaar ay leedahay sidoo kale waxay leeyihiin shaqadooda waxaa ka mid ah inay baraf ka xaaqaan basaska iyo tareenka ayaga mas-uulka ah qashinka iyo maaragtay recyclingka ayaga mas-uulka ah waxaasna waxaa waaye mas-uuliyadda ay leeyihiin municipal governmentiga ay leeyihiin marka waa wax isku dhex yaacsan ma jiraan way kala caddahay qof walba mas-uuliyad gaar uu leeyahay dowladana way ka dhexaysaa wadankana wuu ka dhexeeyaa maadaama hadday tahay aan soo taabanay aan ka hadalnay baarlamanka iyo sanadkiiba aan ka hadalnay iyo governor generalkana aan ka hadalnay waxaa markaa meeshaas nooga soo baxaya in baarlamanka uu leeyahay 3 qeybood 3daas qeybood waxay ka leeyihiin House of Commons iyo Senatka iyo muxuu ahaa sovereignka ama boqortooyada waa 3daan House of Commonsiga marka waxa uu ka kooban yahay طبعا mucaarad iyo maxaafid ay kala leeyihiin mucaaradka waxaa waaye dadka maaragtay aanan ku guuleysanin doorashada maxaafidkana waa dadka markaas wadanka ka taliyo sidoo kale sanadka saan hore usoo sheegnay waa lasoo magacaabaa governor generalkana wuxuu matalaa qortooyada ingiriiska ayuu matalaa marka 3daas qeybood ayuu u kala baxaa baarlamanka 3daas qeybood ayuu kala leeyahay qeybna waa la soo doortay qeybtan lama soo dooranin waa la magacaabay qeybtan kalena sidoo kale lama dooranin waa la magacaabay meeshan sawirkan yar wuxuu na tusayaa kaliya hay-adaha dowladda iyo qaabkay u kala shaqeeyaan iyo qaybta ay kala yihiin waana wax maaragtay standard ah adduunka oo dhan ba isticmaalo qayb waxaa la yiraahdaa legislative waa maaragtay sharci dejinta legislative-kaas wuxuu noqon karaa kii maxaan ku yiraahdaa gobolka ama wuxuu noqon karaa kii muxuu ahaa wadanka dhan matalayo House of Commons ayuu noqon karaa waxataa wuxuu noqon karaa midkan muxuu ahaa hoose dowladda hoose ayaga naftirkooda waxay leeyihiin sheeg councillors ay leeyihiin qaybtan kalena waxaa la yiraahdaa executive branch la yiraahdaa laanta fulinta waxaa madax ka ah prime ministerka ayaa madax ka ah iyo wasiirada intaas oo ay ka kooban yihiin laanta saddexaad waxaa la yiraahdaa judicial system ayaa la yiraahdaa waa maaragtay qaybta garsoorka marka waxaa hoos imaanayo maxkamadihii ayaa hoos imaanayo maxkamadda ugu sareysa wadanka Supreme Court ayaa la yiraahdaa kulli waa baran doona markan chapterka justice-ka ka hadlayno waxayna leeyihiin sidoo kale maxkamadaha qaarna waa federal qaarna waa provincial marka 3daas laamood ayay u kala baxaan sidoo kale wali nidaamkii waxaan ka hadlaynaa dowladnimada Canada okay prime minister selects the cabinet ministers and is responsible for operation and policy of the government horaan usoo sheegnay tan muxuu ahaa wasaaraha wuxuu dooranayaa wasiiradiisa waxayna mas-uul ka yihiin asiga iyo wasiiradiisa dowladda shaqooyinka ay qabanayso iyo in maaragtay siyaasadda ay dowladda ku shaqeynayso ayaga mas-uulka ah the House of Commons is the representative chamber made up of members of parliament elected by the people traditionally every 4 years marka pointskan طبعا waa un xusuusin horaanba intaan oo dhanba usoo sheegnay prime minister waxaan niri House of Commons waxaan niri wuxuu ka kooban yahay members of parliament oo 4 sano kasto la soo doorto senatorska lama doorto ayaga waa la soo magacaabo governor generalka ayaa magacaabo kadib markii uu wasaaraha uu la tashto waxayna shaqeyn karaan ilaa 75 jir ay ka gaarayaan bill ma noqon karo muxuu ahaa sharci ilaa la soo mariyo labada aqal kadibna uu helo ogolaansho oo xagga boqortooyada ah oo uu ku matalayo Canada governor generalka Canada maadaama constitutional monarchy ay tahay wadanka waxaa head state u ah queen ama king ayaa u ah hadda طبعا queen ayaa u ah sidoo kale waxaan soo sheegnay in maaragtay boqortooyada ingiriiska uu ku matala Canada governor generalka oo ay soo magacaawdo boqortooyada ay soo magacaawdo iyadoo la tashanayo muxuu ahaa wasaaraha Canada la tashanayo طبعا wuxuu shaqeeyaa governor generalka 5 sano ilaa inay duruufo kala yimaadaan mooyaane hadda for example wadankan
waxaa governor general ka ahaa Julie Bayet ayaa ka ahayd, laakiin waxyaabo ma aragtay oo waxaa soo baxbaxay oo ishag eedeymo waxyaabaa lagu soo eedeeyay, saas daraadeed xilkii waa isaga tagtay. sidoo kale waxaan soo sheegnay in 10 gobol oo provinceska loo yaqaano ay leeyihiin lieutenant governor oo ku metelayo boqortooyada, ku metelayo goboladaas. waxaana soo magacaabo governor generalka. lieutenant governorkana sidoo kale wuxuu shaqeeyaa 5 sano ayuu shaqeeyaa. marka guud ahaan maaragtay systemka dawladeed ee Canada qaabkaas ayuu u shaqeeyaa. marka wax wareer badanaa ma lahan. waxaa muhiim ah kaliya inaan fahanno in wadankan aan la dooranin madaxweyne ama ra'iisul wasaare lama doorto. hadda ra'iisul wasaaraha wadankan xukumo طبعا waan ka hadli doonaa chapterka xiga aan ka hadli doonaa, laakiin ra'iisul wasaaraha wadankan doorto dadka wadanka xukumo ula jeeda dadka si toos ah uma doortaan. ra'iisul wasaaraha wuxuu ku yimaadaa qaab xisbiyeed. xisbi kasto waxay maaragtay keensadaan dad metelayo oo u tartamo doorashada ugu tartamo. kadib markii ay doorashada ay dhamaato oo la tiriyo codadka, xisbiga codadka ugu badan ee baarlamanka House of Commons ku guuleysto horjoogahooda ama qofka madaxda ka ah ayaa wuxuu noqdaa ra'iisul wasaare. marka qaabkaas uu ra'iisul wasaare ku noqdaa mooyaane warqad ay ku qoran tahay prime minister oo loo codeynayo oo lagu ridaayo sanduuq ma jirto. taas aad ay muhiim u tahay. sidoo kale waan ka soo sheekeynay muxuu ahaa baarlamanka iyo qaabka uu shaqeeyo iyo inta sano la doorto, governor generalka qaabka uu shaqeeyo iyo cidda doorato. waana ka soo hadalnay sidoo kale lieutenant governorka iyo cidda doorato iyo wadankan head of state qofka ka ah. marka waa straight forward. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysateen. intaas iyo nabadgelyo iyo mar kale iyo cutub kale oo cusub. السلام عليكم. معلومات inta dheer waxaan idinkula wadaagi doonaa channelkan. fadlan la share garee asxaabtaada iyo qof kasta oo aad isleedahay wuu ka faa'iideysan karaa. fadlan subscribe saar si ay kuu soo gaaraan macluumaad ku saabsan kooraska iyo kuwa ku saabsan jinsiyadda Canada. mahadsanidin.